gabayga hooyada ayaan ku xijinayaa hooyadu rasuulka sallallahu alayhi wasallam ninba u yimid oo maaragtay wuxuu yiri rasuulka ilaahu dadka la noolahay yaa iigu xaqle buu yiri yaa iigu xaqle rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri hooyada rasuulka sallallahu alayhi wasallam hadana wuxuu yiri yaa ku xiga wuxuu yiri hooyada yaa ku xiga hooyada markii afraad ayuu yiri rasuulka sallallahu alayhi wasallam abika ama abuka aabaha marka hooyadu waynu ognahay intaas oo xadiisa ku soo aroortay rasuulka sallallahu alayhi wasallam xadiis kale wuxuu ku yiri al jannatu tahta aqdami ummahatikum jannadu waxay ku jirtaa hooyadiin lugaheeda hoosteeda ka doonta naam adeeca weeyaan rasuulka sallallahu alayhi wasallam xadiis kale wuxuu ku yiri riddu rabbi riddul walidayn ilaahi subhanahu wa ta'ala raali ahaashiisu waa waalidka oo ka raali ah sakhadu rabbi sakhadul walidayn hadii waalidku ku calaysan yahayna ilaahi subhanahu wa ta'ala waa ku cadhooda inagu waxaynu ognahay waalidka looma jajabna waqtiyadan dambe ama dadkeena dambe waxaad arkaysaa qof hooyadii ama waalidkii joogan wadankii oo ay ka soo codsadaan xoogaa lacaga markaas ay oranayaan odaygan islaamtana way iska waana yihiin anuma UN kan u shaqeeyaa anuma waxaan u shaqeeyaa maxaa la yiraahdaa marka hooyada iyo ilaahi subhanahu wa ta'ala meeshuu saaray ayuu gabaygan tilmaamayaa waxaan ku xijin doonaa gabaygii aabaha hooyadu inay qaali tahay hubanti weeyaane hooyadu inay qaali tahay hubanti weeyaane la isku ma hayo waa midaan hadal ka taagnayne waa geed hadweyn oo khalqigu ku hiranayay aabaho halgamayo naftiyo huraya maalkiisa hadalkii rasuulkay xaqnimo uga horeysay halka diintu saartay jannada galisay hoosteeda oo hiro inay tahay ayaan helay akhbaarkeeda sagaalkii biloodee horeen hurudnay uurkeeda hakad baa tallaabadii galay oo hiirgabay noqotay hilibkii iyo bariiskii cuntada ka hortimo diiday barar baa hareeyo hurdadii toosu heli weyday waxaa hawlay hooyada ilmaha ku hiilan uurkeeda iyadoo habkaasay marquudha soo herdiday foosho halhaleel nafteediyo markii hadadii loo yaabay oo hiilkii ilaah baa ilmihii hore u soo dhaafay iyadoo hafeefanaysa oo habayo dhiigiina horaadada intay noo dhigtay waliba noo heestay annagoo hadaaqaynabay nala hadlaysaaye hooyadu waxyaabay mucjisada ku tahay waxaa la mida waxaa ka mida ilmo yar bay la hadlaysaa ilmo yar oo dhashay bay u waramaysaa waxaa jira waxaa dhacaya waxa ilaahay subhanahu wa ta'ala inoogu sakhiray hooyada annagoo hadaaqayna bayna la hadlaysaaye caanahay habeenkii inagoo hurudna ay qooshto hore nagama siise iyada ku hormartoo eegta hareeraha ayay eegaysaa gogosho hoosteeda ammaankeenna yay hubinaysaa hadiyo gooraale qofkii hooyadii nooshahayow hadal xun ha u quurin qofkii hooyadii nooshahayow hadal xun ha u quurin ha ku oran warayka ha ka toohuriya laabteeda qofkii hooyadii nooshahayow waa hantiyo maale warwaahibo ilaahay watiyo hodonka deeqdiisa qofkii hooyadii nooshahayow hadal xun ha u quurin haddii hooyada ay hantiyo halal ku weydiiso oo aadan hayn oo markaa heli karayntaagga oo aadan hayn oo markaa heli karayntaagga haye hooyo hadalkaagu waa inuu ahaadaaye hadhka galay habeenkoo damyiri hiirta waa beriga waxay ku hamidaa waa inaan horumar gaarnaaye homeboy haddii ay dhashiyo hacow ka sii liita hoodir iyo halyay baan dhalay bay ku hanjabaysaaye habaar nooma quudhee ducayna huwinaysaaye qofkii hooyadii nooshahayow hadal xun ha u quurin ha ku oran warayka ha ka toohuriya laabteeda qofkii hooyadii nooshahayow waa hantiyo maale hooyada ilaahayow ka hay dhibab halaakeeya hooyadan ilaahayow ka hay dhibab halaakeeya hodannimo ilaahayow ku sii dunida hooskeeda caafimaad rabbow ku huwata hadiyo gooraale haddii uu wakhtigu soo galo malagu hoomaayo
hawl yaraan ilaahow naftiyo hadada loo qaato hogga iyo ilaahow qabrigay hanato tawxiidka halka lagu hakanayo barsakha hadhac qabow seexi ilaahow jannada halacsata iyo hibaaqeeda oo heelkii qiyaamaha rabbiyow hagar la'aan dhaafi hawiya ilaahayow ka haynaartu wahliise halkii nebigu joogiyo rabbiyow lagu hagaa khayrka amiin hal abuuro baa jiray iyagu hore u faaleeyay nacam suugaan badan baan baadho rag hore ay tiriyeen laba nin baa igula cuslaaday runtii labadaana waajib ay noqotay inaan gabayga ku xuso waxay ahaayeen Carays Ciise Kaarshe oo 760kii tiriyay gabay la yiraahdo saar la yiraahdo hooyadu waa lama huraan runtii wuxuu ku keenay farshaxanimo weyn oo cajiib leh oo u malaynayo qof sida hooyo wax ka sheeg ama u abaal gud ama suugaan ku cabir oo ninka ka culus inuu jiro u malayn maayo anigu intaan suugaan Soomaaliyeed arkay ninka kalena Hadraawi buu ahaa Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi oo runtii isaguna maanso cajiib leh oo aad iyo aad uga shaqeeyay hooyada ku amaanay hal abuuro baa jiray iyagu hore u faaleeyay Hadraawiyo Carays Ciise waa ugu horeeyeen oo heenkii af Soomaaliga hore u qaateen halkii ay dhigeen aniga oon hadal ku gaadhaynin intaasaan ku soo horiyoon ku hakinayay waxaan ku xijin doonaa insha Allah taala gabaygii aabaha